maxaa dhici doona geerida Nabi Ciise calayhi salaam kadib? maxaa laga wadaa reer bani Israa'iil? xagee quraanka looga sheegay Nabi Xisqiil calayhi salaam? Nabi Yaxye iyo Nabi Ciise calayhi salaam maxay isku ahaayeen mise isku waqti bay ahaayeen? waxaan halka kaga jawaabi doonaa su'aalahaas oo dhan haddii aan ku bilaabo reer bani Israa'iil. kelmadda Israa'iil macnaheedu waa addoonkii Ilaahay, waxaana lagu naanaysi jiray oo lagu magacaabi jiray Nabi Yacquub calayhi salaam. Nabi Yacquub calayhi salaam wuxuu dhalay 12 wiil. 12kaas wiil iyo wixii ay sii dhaleen oo ka sii farcamay ayaa waxaa la yidhaahdaa reer bani Israa'iil ama ilma Israa'iil. haddaba ma la dhihi karaa yuhuudda maanta joogta waa reer bani Israa'iilkii saxda ahaa oo nasabkoodu wuxuu toos u galaa Nabi Yacquub calayhi salaam? dadka baaritaanada sameeya qaarkood waxay leeyihiin nimankan yuhuuddaayo maanta jooga in ay yihiin dad isaga yimid qoomiyado kala duwan. qaarkood carab ay ka yimaadeen, qaarkood afrikaan ay ka yimaadeen, qaarkood eeshiyaan ay ka yimaadeen, oo aysan gelayn si toos ah Nabi Yacquub calayhi salaam. Nabi Xisqiil calayhi salaam xaggee quraanka looga sheegay? Allah subxaanahu wa tacaala Nabi Xisqiil quraanka magaciisa kuma sheegin. magaciisu wuxuu ku soo arooray kutubta Israa'iiliyaadka ah. Israa'iiliyaadku maxay yihiin? Israa'iiliyaadku waa ambiyadii reer bani Israa'iil loo soo diri jiray. waxa ay ka qoreen nimanka reer bani Israa'iil oo kutubtooda ku qoran oo annaga quraankeenna aan lagu sheegin. haddaba xukunka muxuu yahay in Israa'iiliyaadka wax laga soo guuriyo taariikhdooda iyagu waxay qoreen? annaga waxaa noo bannaan in aan ka soo warinno oo qisooyinka iyo Israa'iiliyaadka aan warkooda ka soo qaadanno, laakiinse ma rumaysanayno mana beeninayno. Nabi Xisqiil calayhi salaamna kutubta yuhuudda ayaa lagu sheegay, laakiinse quraanka Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay suuratul baqara. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: acuudu billaahi minash shaytaanir rajiim. alam tara ila alladhiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almawt فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقومك الله سبحانه وتعالى وآياداس kaga hadlay oo iyagoo ka baqaya xanuun intay ka soo carareen tuuladoodii Allah subxaanahu wa tacaala uu laayay kadibna uu soo nooleeyay si uu aayad iyo mucjizo uga dhigo Nabi Xisqiil calayhi salaam. maxay ahayd cilaaqada ka dhaxaysa Nabi Yaxye calayhi salaam iyo Nabi Ciise calayhi salaam? waxaa la yidhaahdaa Zakariya calayhi salaam wuxuu qabay gabar la yidhaahdo Ishaac oo la dhalatay Maryam bintu Cimraan. marka Nabi Yaxye calayhi salaam iyo Nabi Ciise waxay isku noqonayaan ilma habreed, waxayna ahaayeen isku waqti. Nabi Zakariya calayhi salaam waxaa la dilay oo reer bani Israa'iil ay dileen Nabi Ciise calayhi salaam dhalashadiisii kadib. maxaa dhici doona geerida Nabi Ciise calayhi salaam kadib? Nabi Ciise calayhi salaam markii la qaaday horta wuxuu ahaa 33 jir. markii la soo dejiyeyna 7 sano ayuu joogay dhulka. saas wuxuu cumrigiisu ku ahaa 40 sano ayuu ku geeriyoon doonaa Nabi Ciise calayhi salaam. Allah subxaanahu wa tacaala markuu oofsado Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu soo dirayaa dabayl naacaw aad u qabow oo qof walba oo qalbigiisa in yaroo iimaana uu ku jiro nafta ka qaadaysa. kadib dhulka waxaa isugu soo hari doona dadka gaalada ah keliya. dadka Allah subxaanahu wa tacaala aan aaminsanayn oo dhan waxaa laga waayi doonaa adduunkan oo dhan qof Allah yiraahda ayaa laga waayi doonaa. kadibna dadkaas ayaa baabi'i doona. kadibna qiyaamihii ayaa dhici doona.